dhalinyarada dalkeena waa boqolkiiba 75 sidaas ay tahay ma helaan mudnaanta ay lahaayeen sida ammaanka, waxbarashada, caafimaadka iyo shaqooyin kale ilaa burburkii dawladii dhexe. halkan waxaa ku sugan dhalinyaro aan u imaan madadaalo iyo dabal balse u yimid inay raadiyaan nolol maalmeedka reerkooda iyo ka naftoodaba. nolosha ma aha wax sahlan ba noloshiisa sibuu ku maareeyaa balse dhalinyarada noloshoodu waxay ku tiirsan tahay badan aad arkaysaan ay noloshooda iyo qunturduroonigooda waliba ka raadsadaan. dalkeena waxa uu leeyahay nimcooyin uu alla ku manaystay, kalluunka ayaana ka mid ah oo ay noloshoodu ku tiirsan yihiin qoysas badan. waxaana dhalinyaradan ay aroor walba halkan u yimaadaan si ay u helaan qunturdurooniga noloshooda. waxaan se isku dayay in aan markayga aan soo qabto kalluunka, laakiin wax sahlan maaha balse iyaga xaggooda aad ayuu uga fudud yahay, inkastoo mararka qaar uu kalluunka midkiisa weyn aad ula dagaalo ilaa ay isla tagaan badda gunteeda hoose sida uu i sharaxayo Salaad oo ka mid ah dhalinyarada halkan aan ku kulanay. gacmaha firdooyin jamilka adoo malaayga hay sida macnaha dhici malaayga ku jiidanaya fiilado gacanta kaaga xira waa isreecaysiin asiga adiga awoodiisu ku adeegsaa asiga ku joogsaa malaayga waa weyn yahay xoog uu leeyahay ilaa nin oo maqaalin ay ku taagantahay oo xanuunsan waayo oo orda adigana marka waxa loo baahan yahay inaa celiska celiyaysi mad control bu fiilado ku keenaa biyaha isla galaysi marka adiga asi waxa galeeshina leeyahay marmarka qaar waxa dhacday jimlada hoos inaa isla galnaaniyaas fiilada ku duran inuu biyaha hoos iigal aan rooc waa laga yaabaa jimlada hoostooda asaas isku raacnaaniyaas ay isbursuun hoos anagoo jirin dhulka ay isbursan waa laga yaabaa ay ugu soo noqotaa bartanka dhacay wiil xataa mar anoo malaayga haayo oo fiilada igu sirqan tahay biyaha isku gama alaas waxa uroorayo malaayga ka fikin macnaha aniga naftayda macnaha biyahaas macnaha inay wax iga dhameeyeen alxamdulillah waa iskii kalsoonahay badaas waa dawaalna intuu ilaahay si faham laakiin kaasa iga sii daran malaaygaas iga sii daran oo jaaniska oo isoo galay inuu iga baxsada ii daran. Salaad ayaa ii sharaxay inuu u yimid si joogto ah halkan subax kastana aroor hore uu yimaado, wuxuuna ii sheegay inay isugu xiran yihiin koox waxaa samideysay daruufta adag ee nolosha dalka ka jirta maanta. midkooda aan kalluunka helin maalin waxaa saacida midkiisa helaa oo isku koox yihiin. aad iyo aad salaada markaa ka soo baxno salaada subax markaa ka soo baxno waa imaana alxamdulillah shukr lillah wuxuu ilaahay noo sakhir waa ka helnaa malaayga dhufanaayna waa kana malaayadan oo kale hadda waa kana malaayadan oo kale dhufana meeshan waxaan ku qabanaa jilaabtaas iyo cantalaashaas ku qabanaa alxamdulillah ana wadana jilaabiya wadana oo lagu jilaabo malaaygan oo magaciisa oo balan Allah balan xaj Allah balanka xajka ku bilaabana waageena malaaygan ilaahay sakhir alxamdulillah shukr ee malaaygaas kala yumbiga la dhoo waa ka helnaa wuxuu ilaahay naga siiyay alxamdulillah waxaanahay ciyaal oo waxaanahay isku tiim aanay oo isla jirjiro maanta hadda aniga waxa qabu waay ninka saaxiibkayga wax qabta alxamdulillah asaa wax ku leeyahay hadda asiga wax xili waay anigoo wax igu leeyahay waa qaybsanaa alxamdulillah shukr. ma jiraan fursado badan oo shaqo oo dalka ka jira dhalinyaro badan noloshooda si adag ay ku soo saartaan nolol maalmeedkooda oo ay tan ka mid tahay. Fartuun Maxamuud Axmed, Shabeelle TV, Muqdisho. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.